الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي قدومي كحيين كلاباد قلاها وكيلة جمهورية سوماليلاند مسؤولين تنقلب شوقا قلاها وزيرة ميركا عاصمة سفيركا وكيلكا دولة تايوان جمهورية سوماليلاند أمباسدور آلاند مدحدا كلي نقلب شوقتا قلاها وكيلة حلوانada قلاها وكيلة xildhibaanada golaha deegaanka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha marwooyinka qaranka amba maxaanada haweenka qaranka ee halkan nagala soo qayb galay bulshada kale ee kala duwan ee dhaqanka bulshada deegaanka bulshada kala socota degmooyin kala duwan ee Hargeysa maareeyaasha wakaaladaha biyaha ka kala yimid gobolada si ay munaasabada muhiimka ah uga qayb galaan iyo dhammaan madaxda kale halkan inala fadhida waxaan ku soo dhaweynayaa salaanta islaamka maanta runtii waa maalin weyn inuu alla qadaray inagoo halkan isugu nimaadno madaxweynuhu runtii xariga uu ka jarayo mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee bulsho ahaan iyo madaxaanba runtii ku yimid hindisaheena tacabkeena gelinay saaxiibadeena ay nagala qayb qaateen isagoo guul ku dhamaaday waa wax weyn siday sheegeen agaasimayaasha wakaaladda Muna Cabdulla Ismaaciil agaasimaha xarunta maareynta biyaha ee beer xanaanada iyo Axmed Muuse Daahir agaasimaha waaxda qorsheynta oo xog yar kooban oo maraaxilkii mashruucan soo maray nasiiyay mashruucan runtii waa mashruuc weyn waxaan ogsoonahay mashruucii hore dawladda China hirgelisay dhowr iyo 70kii maanta waa ku tameeyay sano maanta daahaynu soo laabanaa mashruucaasi halkaas soo xirmay waxaanu guuri doonaa systemka kale ee inagu umadahan hirgelinay oo ah systemka cusub ee Hargeysa oo ka kooban ceelal cusub oo la horgeliyay kuwii hore xarunta biyaha laga garaacayo iyo beebka ilaa Hargeysa tagaya oo si guul ah uga dhamaaday waxa runtii jeclaan lahaa inaan xuso mashruucan runtii waqtina uu soo qaatay xilliyo adagna uu soo maray laakiin waxa xusud mudan runtii inagoo dawladda yar oo dhaqaaleeyna gooban yahay inaynu qaadanay mas'uuliyadda ah in wixii laynaga baahnaa maamul ahaan inaynu la nimaadno dhaqaale badan runtii oo cashuur bixiyaashana laga soo ururiyayna la hirgeliyo waana runtii infrastructure la isticmaali doono sida ka hore kontonka sano ee soo socda marka maanta uu dhamaaday ceelasha biyo dhuuntu way ka weyn tahay labadii dhuumood ee hore la isku daray xarunta biyo soo saarkana halka bamay yaala ka awood badan 6 geedeeb la yaalay markaas saddexda sida agaasimuhu sheegay mid baa shaqeyn doona midna saacad u shaqeyn doona midna waa kayr waa nidaam technology-ga casriga ah ee maanta ku salaysan xukuumadda Soomaaliland mashruuca waxay gelisay lacag ka badan $3 milyan runtii oo door weyn ka qaatay sidaas leeg mashruucan dawladaha amba midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo dawladaha kala taageera Ingiriiska Denmark Norway Holland ayaa ayaguna mashruucan runtii kaalin weyn oo la xaalad ka qaatay markaan leenahay mashruuca wajigii koobaad baa dhamaaday waa mashruucii magaalada biyaha Kenya baa dhamaaday mashruucii magaalada gudihiisa ka socday bal ka waran mashruucaasna laba qaybood oo ahaa qayb Coca-Cola naga taageertay shirkadaasi iyo qaybta weyn oo ah dan dawladda Jarmalka ay naga taageertay dhaqaale ahaan oo qorshihiisu ahaa ka Jarmalka 163 kilomitir oo dhowaa iyo 4 barkadood oo waaweyn oo degmooyinka caasimadda laga kala dhisayay Coca-Cola wuxuu 63 kilomitir oo ah darafyada magaalada halka aanu mashruucaasi gaareen iyo 4 kayd oo yaryar marka guud ahaan laga soo bilaabo 2017kii iyo mashruuca Jarmalka oo fulintiisu bilaabantay 2018kii waxa Hargeysa la dhigay in ka badan 200 kilomitir oo dhuumaha biyaha ah oo dhammaan degmooyinka caasimadda waxaana la dhisay 8 kayd oo waxay u dhisan yahay mashruuca maanta kuma jiro kayma furayno oo waxa uu harsan 30% iyadoo shirkadii shaqada watay shaqada aanu ka saarnay marka qandaraaskii dambana email gacanta lagu hayo waxaana qorsheynaynaa in isaguna ilaa marka qandaraaska la bixiyo muddo sanad ilaa sanad iyo 3 bilood oo ku soo afmeermi doona haddii ilaahayna wajiga labaad ee mashruucuna waxa uu noqon doonaa ka biyaha maanta aynu Hargeysa leenahay oo geynana maxay yihiin xaqiiqdii Hargeysa markii hore waxaan soo saari jirnay kamu badnayn 6500 mitir cubic waxaan aaminsanay 9 mitir cubic aan soo saarno laakiin systemka saacadiisu dhameystiray markii lagu eegay uu dhaafay 5500 ilaa 6500 maanta waxaynu geynaynaa waa biyo kor u dhaafaya 17500 amba almost 18000 mitir cubic
haddii aanu idhaahno beer person calaa qof 35 litir haddii aynu nidhaahno waxa weeyaan 500,000 oo qof biyahood. markaa qorshu wuxuu noqonayaa maadaama ay biyahani caafimaadkooda iyo tayadooduba sarayso in xoogga lagu saaro sidii bulyaha loo hubin lahaa in cabitaanka loo isticmaalo. taa waxaa ka dhalanaysa in la keeno siyaasad lagu dhiirigeliyo ganacsatada goobaha ganacsiyada waaweyn ee biyaha badan u baahan in biyaha booyadaha ay isticmaalaan ayaa ka dhalanaysa. una baahan hay'adaha dowladdu inay runtii talo iyo tusaale wixii hayaan ay ku taraan si aynu u yarayno biyaha dadkeena isticmaalaya biyaha booyadaha ee qaarkood aanay nadiifta ahayn. kaasi waxa uu noqonayaa runtii qorshayaasha loo baahan yahay. midna madaxweyne waxyaabaha kale ee sanadkan bilaabmi doona waxaa ka mid ah dam laga hirgeliyo deegaanka Geedeeble oo runtii daraasadiisuna muddo soo socotay ay waday xaruntii sanadka hore aan xiriir ka jirnay xarunta maareynta biyaha oo biyo xidhaanada oo lagu eegayay goobaha ku haboon in daamam laga hirgeliyo. falilahi alxamdu madaxweyne iminka nin muxsiniinta reer Somaliland ka mid ah ayaa ku deeqay qaadaankii koobaad isagoo codsaday magaciisana inaan la sheegin meelnaba lagu sheegin oo kana qayb qaadanaya dhismaha. waxaan rajaynaynaa dadka reer Somaliland ee wax siinay inay ka qayb galaan dhismaha daamkaas oo noqonaya daamkii koobaad ee laga hirgelinayo deegaanka magaalada Hargeysa. runtiina waxa uu tari doonaa nidaamka biyaha. sidaas leeg madaxweyne waxaanu guud ahaanba ka jeedinay diiradayada biyaha ceelasha anagoo u jeedsanay sidii loo heli lahaa dhismayaal inaga caawiya in la qabto biyaha cirka. sidaas leeg waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Fera Foundation oo iyadana runtii naga caawin doonta hal dhisme amba hal daam nooca loo yaqaano sub service dam amba daam hoosaad oo isaguna runtii aan rajaynayno kaydka ceelasha uu wax ka tari doono. waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo ambassadorka dowladda Taiwan iyo xafiiskeeda Hargeysa ee hogaaminaya ambassador Alan oo runtii iyaguna sanadkan bilowgiisii saalay noo sheegay naga bedelay ceel ka mid ah ceelasha duugoobay ee magaalada marka hore ku tiirsanayd. waxaan jeclaan lahaa inaan sidoo kale u mahadnaqo dhammaan midowga Yurub dowladaha taageera sanduuqa horumarinta Somaliland SDF ee afarta kale ah dowladda Ingiriisku ay ugu weyn tahay Denmark, Holland, Norway iyo dowladda Jarmalka bangigeeda horumarinta Jarmalka oo wada mashruuca magaalada gudaheeda shirkadda Coca-Cola Africa Foundation iyo dhammaanba shaqaalihii kala duwanaa ee muwaadiniinta lahaa ee dalka daafihiisa ka kala yimiday madaxdii kala duwaneyd oo waxaynu ognahay madaxweyne Siilaanyo mashruuca bilowgiisii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Siilaanyo wuxuu dhagax dhigay 2015 baabka markii uu bilaamay. dhammaanba madaxdii kala duwaneyd ee doorka ka soo qaadatay mashruucan waxaan jeclaan lahaa inaan mahadnaqo. mudana madaxweyne waxaynu ogsoonahay dhulkan iminka hantideena ugu badan ee xagga biyuhu ku yaala waa seeraha Geedeeble. waxaan kaana jeclaan lahaa cid kastoo ka qayb qaadata dhulkaas oo runtii qaranka ahmiyad weyn ugu fadhiya wanaajintiisa. runtii xukuumadduna runtii waxay aad u adkaysay seeraha in la dhowro oo la ilaaliyo oonu gacanta dowladda ka bixin waayo markaad seera ka shaqaynaysa markaa beer gaar loo leeyahay ka shaqaynaysa runtii isku hawl iyo isku culays ma aha. waxaan jeclaan lahaa hadalkayga inaan kusoo gunaanado shaqaalaha wakaaladda biyaha Hargeysa ee kala duwan ee la hablo inamo runtii aad u karti badan dhammaanna runtii iyagu lafdhawar u ah howlaha ay wakaaladdu ku jirto ee wanaaga badan ee ka mid ah horumarinta biyaha Hargeysa ee halkan fadhiya iyo qoladii xafiiska Hargeysa ka shaqaynaysa. mudane madaxweyne waxaan jeclaan lahaa inaan si gaar ah kaaga mahadnaqo go'aamada ay xukuumaddu qaadatay ee mashruucan doorka weyn ka qaadatay haddii ahaa in militariga laga hawlgeliyo meelihii runtii mashruuca ragaadiyey ee ugu yaraan shaqada sanad dib u dhigay inay militarigeenu go'aan ka qaataan adigoo tilmaanteeda iyo taladeedaba adigoo aad lahayd. waxaan jeclaan lahaa oo kale inaan muujiyo haddii aanan inaku muujin waxaan inaynu leenahay runtii dee weligii dhammaan maayo. dowladda jamhuuriyadda Somaliland waxay u hurtay mashruucan oo wasaaradda maaliyaddu ka wakiil tahay lacag ka badan $3 milyan oo marka la xisaabay wixii lacaga marka in-kind contribution la yiraahdo qalabkeena iyo dadkeena ka shaqeynayna runtii intaa way ka badanaysaa. waxaan jeclaan lahaa maayarka caasimadda Hargeysa golihiisa deegaanka inaan iyagana si gaar ah u mahadnaqo iyo wasaaradda horumarinta biyaha wasaaradda qorsheynta qaranka iyo dhammaan hay'adaha kale dowladda ee wada shaqeynta leenahay. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso
isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed. سلام عليكم. السلام عليكم. waxaanu jecelnahay wadajirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland.